qof walba abaal gala dadkiisa abaal u galay isla markaana cirka geliya isagana taariikhda ayaa xusta oo markiisa ayaa cirka la geliyaa xalay xaawo degan beesha habagidir oo dhan ayaa u kacay gaar ahaan haweenkii ayaa u kacay isla markaana madal weyn oo furan oo xafladana daara cali sow ayaa dahab malaayiin dollar ku kacaya ku guddoonsiiyay inaan dahabkan guddoonsiyo xaawo degan dahabka waxaa iska daahir cali sow على سو يقولون حاو dhanka kalena waatan ayadoo sheegaysa dawladda Soomaaliya inay 4.5 ay ku dhisan tahay isla markaasna inay beesheed hees u qaadana ay mar walba iyada xiis u qabto walaalayaal aniga qabiilka ka dhashay dawladdu waxa dawladdu lagu soo xulaa oo qaran laga dhigo dawladdu lagu soo xulaa waa qabiil wadankeena 4.5 wax la dhaho dawladdeena lagu qaataa xalay xafladii caasimadda magaalada Muqdisho ka dhacday looma kala harin haweenkii ganacsatadii cuqaashii dhalinyaradii cid walba xalay xafladaas waa ka soo muuqatay gabadhii iyada xaawo deganna xafladu socoto ayay ilmo ka soo qubatay salaamu alaykum saaxiibayaal meel baa joogtaan warbaalka sidaa naga dhaa muuqaalka laga dhaa sii share gareeya maanta iyo mar kale muuqaal cusub muuqaalkana saaxiibayaal waxaan ku dul istaagi doonaa gabadhii xaawo deganayd ee fanaaniinta hoobalada waa bari ka tirsaneed ayaa xalay beesha habagidir xalay cirka gelisay isla markaana gabadhii waa laga waala ganacsatadii dhalinyaradii waxgaradkii aqooyaankii dhammaan meel walbay joogaan xalay xafladaas ayay iskugu soo xoomeen iyagoo meel la kala istaaga la waayay marka muhiimadda xafladda marka way xambaarsaneed sidaad ogeedeen gabadhan hees way soo qaaday guud ahaan hawiye ay hees u qaaday gaar ahaan habagidir ay hees gabadhan u soo qaaday heestaas ayaa noqotay marka hees sonkor leh isla markaasna macno badan ay ka dhex guuxayaan ay hees noqotay marka haatan aan ila hadlayana xafladaha waa laga daaraa munaasabadaha waaweynna waa laga daaraa sidoo kale isku maashiyaha weyn beesha hawiyena sidoo kalena waa laga daaraa oo heestaanba kaalintii astaanta qaranka ayay gashay sida iminka muuqan karaysaba maadaama madal walba laga daarayo gabadhan heesta markay soo qaadaysana dalka Masar ayay ku sugnayd iyada saaxiibkeeda iyo qoyskeeda Masar ayay ku sugnaayeen laakiin dhawaan ayay soo guri noqotay oo haatan caasimadda magaalada Muqdisho ayay ku soo guri noqotay laakiin difaac adag ayaa lagu jiray oo iyada ayaa la sugayay markay nasatay oo 4 maalin joogtay ayaa xalay xafladan kadiska iyadoo loo dhigay marka haweenka sida taqaanaan Soomaaliyeed oo garab weyn ah oo burburkii kadibna iyaga qoysaska caawinayay oo iminkana garab weyn lagu tirsan yahay isla markaana dhiig badan ka dhex guuxayo ayaa iminka marka xafladan soo qaabiyay waxayna xalay cimaamad ku tuureen gabadha iyada ahayd xaawo degan isla markaana waxay bastusiyeenba inay qaranka muhiim u tahay beesheeda muhiim u tahay Soomaali muhiim u tahay isla markaana meel looga hari karayana ee jirin marka gabadhii xalay xafladu waa loogu waalay Soomaali cid xalay ka maqneed marka ma jirin Soomaali xalay cid ka maqneed marka ma jirin iyadoo marka yaabanba ayay marka heeseeda la daaray tamashaleen badan ee ka dhacday la cabitaaniyay la casheeyay xalay waa la iska waala marka xalay waa la iska waala tiktokerka dheen youtuberada dheen wariyaasha dheen siyaasiyiinta dheen cuqaasha dheen garaadada dheen dhalinyarada dheen cid xalay meeshaas ka maqneed ilaahay abuurto mar jirto marka xalay marka xafladaas marka dhowr nuuc ayaa xambaarsaneed waa mid koowaad mahadcelin ayaa xambaarsaneed maadaama gabadhan beesha ka soo jeeday hees u qaaday Soomaalina heesaas ku qanacaan isla markaasna iminkana meelaha waaweyn ama munaasabadaha waaweyn laga daaro waa mid labaad in gabadhan la tusiyo qofkii Soomaali u heeliya inuu heelinayso iyo qofkii dadkan meel ugu soo baxana in aan la hilmaamin marka iyadoo waxa la halka noo fadhiis maadaama adigu fanaan tahay caawa makarafoonka shaqo ku milid halka noo fadhiis ayaa yiri laakiin iyadoo oo qabatinta makarafoonka ayaa tiri maya heesta iminka dadka jeclaadeen oo hawiye gaaraan habagidir aan qaaday waan ku tuurinaya waa la celi waayay heesta ayay ku tuuratay heesa kale oo iyagana iska baashar ayaa lagu tuurtay xalay marka si kale xalay xafladaas si kale ayay ahaydba mar qura markay xafladda dhamaatay maadaama iyada sarbareys loo waday ayaa sarbareyska lagu kadiyay waxaan la yiri xaawo deganay dahabkan qaaliga daal cali sow ayuu ka socdaa inay guddoon inaan dahabkan guddoonsiyo xaawo degan dahabka waxaa iska daahir cali sow
cabdilla calasow iyo guddoon xaawo intaa kadib markay heystii saameynta lahayd oo soomaali girgisha marka ayaa marka weer lagu soo qaaday heystaas markay soo baxday ayaa weer lagu soo qaaday soomaali waa taqaanaayo qaarkood negative ayaa ka dhex buuxa qaarkood negative keliya ka kulumeysta ayaa jira heystii weer ayaa lagu soo qaaday oo gabadha meel ay gashay ayay weysay iyadoo masar joogta marka maadaama heysti markay soo qaadaysa masar ku sugnayd wasaabkeedii qaab ay yeeshay ayay qoweysay sidoo kale hanjabaadiyad digniino badanna way soo gaariyeen ninkii daara calis waa marka xalay dahabka guddoonsiiyey ayaa xilligaa marka qolkiisa ku martiqaaday isla markaana wuxuu weydiiyey maxaa qaldan dhibka imika ka cabanaysana muxuu yahay walaalayaal aniga qabiilka ah ka dhashay dowladdu waxaa dowlad lagu soo xulaa oo qaran laga dhigo dowlad lagu soo xulaa waa qabiil waddankeena 4.5 wax la dhaho dowladdeena lagu qaataa aniga keligii hees qabiil ma qaado soomaali fanaaniintoo dhanaa wada qaada ani maxaa gaar igu ah horta mid waa taas tan labaad haddaan qabiilka aan ka dhashay amaanta soo ammaanto ceebta ay leedahay ama cusriga ay leedahay walaalayaalo maxay tahay tan labaad hees hawiye oo ku jirto hees hawiye oo tiri mursadaa ku jiro sug mursadaa ku jiro xawaadaa ku jiro abdaalaa ku jiro xawaalaa ku jiro xataa حاو لما دقق على صعدي ياكل عليه كويس war mi heesaane moobilkayga waxa aflagaada ku jirta iyo waxa caay ku jirta heestaas marka iminka ay ka cabanaysay oo dadka sidaas ugu hanjabayeen oo meel ay ka gashay weysay laguna soo weeraray oo weliba ay sheegaysay in Soomaali qabiil ay tahay waxay ku qaybsato iyaduna dadkeeda u hilinaysay ayaa marka xalay saameyn gooliya iyadu u yeeshay isla markaas haydiidas filim waaga ahaydna ay ku guddoonto marka halkaas marka waxa ka soo baxay waxa ka soo baxay in hadda dadka aad u helisid adiga lagu helinayo waa midda labaad ee wax walbo dhib leena dheef inay ka dambeeyaan waa midda saddexaad ee haddii adigu aas garowsato loo garowsanayo saddexdaas fariin ayay gabadhaas markay waxay qabatay ee xambaarsanayeen marka xalayna xafaladii dhacdana ilaa haatan aan kula hadlayana weli hadaleynteedu waa socotaa oo weliba dadkii ka qayb galay oo dhafrana weliba waxayba taagihiinba dhafarkii xal aan dhafarnay mid waajib ayuu ahaa ayayba taagiinba maadaama xawadegan kaalinteeda ka soo baxnay u mahad celinay gabadha iyada heedna madaxa sidaas cimaamada ugu saarnay iyo taageen xawadegan dhanka kale saaxiibayaal sidaad ogtiina waxay ka tirsan tahay fanaaniinta hobalada waabari ayay ka tirsan tahay dhanka kalena kacdoonada waaweyn ee dalka markii Itoobiya lagu banaabaxayo iyo arrimaha kale siyaasadeedna gaari weyn oo mikrafoon xambaarsan intee number 4 ama kilometer 4 soo dhigtaan iyadii kooxdeedana halkaasna dadka ayay ka madaaliyaan oo hoyso kacdoona heese qeera ayay halkaas marka ka qaadaan gabadha marka dhowr shaqo isku wada waa midna waa marka dhanka qaranka waa midna waa dhankii reerkeeda labada shaqo ayay marka saaxiibayaal isku wada xaalana shaqadaas ayaa dhacday daara calosoona kaalintiisu waa ka soo baxay waxa kaga baxarto muhiim muuqaalkana sii share garay